ريال قضبض وركع عاوة وحاوة وين وركي وجودن بي وزير فقي أو هنجبادي وجودن بيسي ودرس سياسيين تمعارض كا شيغانا هدي أي هبين كي معارض كغار أي كوسقنايين برنايو يسيدو كانت ددمده الوداك برموضو أو حصل على غير كوسقنا أي كبد بعدين إن أي ديشو دولدو إن لون حريستي shidaalka ninkii 10 mitir ugu dhuftay hoobiyaha ayaa wuxuu leeyahay waa leedil rabay waligeey ma cafinayo waligeey ma yeelayo inuu nool yahay baa naxariisa haddaba muxuu fikir hadalkaasi ula jeedaa waxaa la wadaagi doonaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo maanta afka furtay weerarkii ahaana ku qaaday xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka barnaamijkeena ayaa ku daawo doontaan maxaa ka jira in wasiir fiqi maanta lagu weerari gaaray magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan kadib markii uu weeraray siyaasiga ka soo jeeda halkaas ee Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloosh isla fiqi ayaa arintaasi ka hadlayo oo aan idin kula wadaagi doonaa barnaamijkeena sidoo kale sarkaal Maxuusliya oo isaguna inta uu fiqi maanta beledweyne ku sugnaa si kul uga hadlay qorshahooda ku wajahan fiqi weerarka uu ku qaaday Sambaloosh waxay ka yeelayaan haddaba maanta maxaa beledweyne ka dhacay barnaamijkeena ayaa idin kula wadaagi doonaa musharax liibaan shuluqna waxaa maanta magaalada muqdisho farta laga saaray kaarkiisa musharaxnimada ee galmudug haddaba maxay tani ka dhigan tahay xildhibaanadii ugu badnaa oo xarunta xisbiga JSB maanta buux dhaafiyay iyo golaha dhexe ee xisbiga oo musharax liibaan shuluq xisbiga JSB inuu yahay musharaxnimada galmudug ku dhawaaqay barnaamijkeena ayaan ku soo qaadan doonaa qaybtan waxaan rabaa inaan kula wadaago saddexdan qodob ee soo dhawaada saaxiibayaal wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macali Fiqi maanta hanjabaadkii ahayd ayuu u diray xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka waxaana uu sheegay in dawladdu ay u naxariis fashay haddii maanta ay nool yihiin hadalkaas oo ah midkii ugu kululaa oo siyaasi Soomaaliyeed oo dawladda ka tirsan mucaaradku ku yiraahdo wasiir Fiqi sidoo kale maanta waa uu hadlay ka gadaal markii warbaahinta bulshadu ay soo gashay in isaga la doonayay in mas'uuliyadda beesha xawaadle ay magaalada beledweyne ku disho haddaba arintaasi inta uu ka soo bixin garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ka hadalka fikir maxaa keenay waxaa keenay ka gadaal markii uu wareysi uu bixiyay Sambaloosh uu sheegay in dawladdu dili gaadhay aanan looga hari doonin isagoo madaxweyne Xasan Sheekh difaaca ayuu yiraahday Xasan Sheekh ma hanjabi karaan kuwa mucaaradka isku sheegaya dhihi ma karaan inagu dawladda ayaa dili gaadhay oo waxa ay nasiib leeyihiin haddii maanta ay nool yihiin وهذا الله ياب يا مكان أبوري مركو حربا إن غيرت تنبيه كل وذا وهذا الكوزير فر لكن مقالة المقدسة ما تم حاجة داعي لكن أنا عكلا سيدو كلا إذا غيرت تنبيه حد كل وذا ليا سرجال مع مسؤولية الباشا حوالي كتر سنة يسوون الفكر وهن جبي واضح لنا عكلا مقالة المقدسة ما تم داعي حزب عدالة وذا جرك جائز بيئة مدحوين حسن الشيخ وحايكار كيس مشرحني ماذا يفرط كسرين ليبان أحمد حسن وكم قاعدين ليبان شلون كذا مركي لصاء ماري قلكي قلمذوق يا خلافاتك كتاجنا ما أنت مناصرة وينها كذا على حروت حزب JSB هذا لك الدوانة اللي جدي مشرح JSB يسوي روحه يري وكفر أحسنها إنه غرقور وحزب JSB وتنازله ما دام لبنان وحزب كوضة ترسلنا معي إن النسوء تنازله وواحد وفرحه هذا واحد ربا هذا الذي اللي جدي شاعين JSB شاعين يعني اللي مشروع ويا مشرح هذا يسوي كله وح مجالات البلدين وكوخ صدي وزير كجاشة Soomaaliya Axmed Macali Fiqi shidaalka ninkii 10 mitir ugu dhuftay hoobiyaha ayaa wuxuu leeyahay waa leedil rabay waligeey ma cafinayo waligeey ma yeelayo inuu nool yahay baa naxariisa kuwaas inay nool yihiin baa naxariis weyn oo waliba la fasaxay oo la daayay waa laga hortagay si geesinimo laga hortagay waad aragteen iyagoo idaacadaha ka maaragtay ka ooyaya kuwii waxa iska dambeeyay ayagoo ooyaya oo dhahaya waana la dili rabay waana la yeeli rabay waana la maaragtay majiijin rabay daroon baana loo adeegsaday xaggaana loo adeegsaday ninka madaxtooyada Soomaaliya madfaca ku soo diray madfaca ku ridayay habeenkaas oo anagu aan deganayn agteeda ayaa wuxuu leeyahay waa la soo weerar ninka haamaha shidaalka dekada rabay inuu gubo oo 10 mitir u jirsaday hoobiyihii uu riday haamaha magaalada dhan guy lahaa dalku intay ka dhaqaaqeen ruqaansadeen bay tageen iyadoo halis la geliyay wada jirka ummadda way ka soo ruqaansadeen dhammaan dawlad goboleedyada ay joogaan maanta insha Allah waxaan rajaynaynaa muddo kooban cadawga khawaarijta ah ee argagixisada inagoo wada jirna ciidamada hiil walaal iyo kuwa kale ee yuusanta
iyo ciidanka xoogga dalka iyo dowladda Soomaaliya annagoo wada jirna inaan ka qaarib noqon doono maraan dheereen. xorriyadda iyo maalmaha madax bannaanida la iskuma hibeeyo, hibe maahan, la iskuma garto, la iskuma dhowro. waxaa la isku dhowraa hadba sidaad u feejigan tahay, sidaad u soo jeedid, sidaad uga shaqaynaysid dalkaadu inuu hagaago. waxaanan ognahay weli Soomaaliya inay jiraan kuwo damac uga jiro xasilooni darradeeda, kuwa lacaga ku bixinaya inay sidii ay sii ahaato, kuwa taageeraya argagixisada oon jecleen in la iska qaado, kuwa maalin dhaweyto u dambeysay 3 Juun iyo 4 Juun qoryaha loo soo dhiibay. waan ognahay cidda u soo dhiibtay oo soo fangarays si magaalada caasimadda ah loo qalqalgeliyo oo qabaa'il mar labaad ay qabaa'il isugu beddesho. way jiraan kuwaas maleegaya iyo kuwa Soomaaliyahoo dee soo horkacaya, weligeedna way jireen. waxaa la yidhi 60kii markaan xorriyadda qaadanaynay xisbiyaha magaalada Muqdisho mudaharaad banaanbax ka hogaaminaya dhahaya xorriyad yaa nala siin. kuwaas ilmahay dhaleen way joogaan hadda. waxayna u baahan tahay in weli laga feejignaado. waa midda dowladda Soomaaliya ee soo xasmisay, soo gabagabaysay. waxaan ognahay lacagta ay soo qaateen intay la ekayd, dowladda ay ka soo qaadeen oo kharribtay dowlado badan oo carbeed oo muslima. lacagta ay ka soo qaateen, sida ay isugu qaybiyeen lacagtaas, hubka qayb ka midana in halkaas laga soo qaaday oo aad arkayseen hub aan loogu talagelin dad shacab iyo inay gacanta ku haystaan. runtii waxay rabeen inay dhaawacaan oo dhaawac u geystaan inaan maanta kale halkaan ugu dabaaldegno, waayo ummad caasimadoodii balaayo kala qabsatay kuma dabaaldegneen halkaan. waa laga hortagay, si geesinimaha laga hortagay. waad aragteen iyagoo idaacadaha maaragtay ka ooyaya kuwii waxaas ka dambeeyey, ayagoo ooyaya oo dhahaya waana la dili rabay, waana la yeeli rabay, waana la maaragtay majiijin rabay, daroon baana loo adeegsaday, xaggaana loo adeegsaday. ninka madaxtooyada Soomaaliya madfaca ku ridayay habeenkaas oo annagu aan deganayn agteeda ayaa wuxuu leeyahay waa laysoo weerar. ninka haamaha shidaalka dekedda rabay inuu gubo oo 10 mitir u jirsaday, hoobiyihii uu riday haamaha magaalado dhan gubi lahaa, shidaalka ninkii 10 mitir ugu dhuftay hoobiyaha ayaa wuxuu leeyahay waa laydili rabay. weligay ma cafinayo, weligay ma yeelayo. inuu nool yahay baa naxariisa. kuwaas inay nool yihiin baa naxariis weyna oo weliba la fasaxay oo la daayay. waxaan rabaa munaasabadan meel kale aan uga hadlaynaa taas, laakiin xorriyadday qayb ka tahay, dhiigga halkaan ku baxayay qayb ka tahay. haddaan laga hadlin wiilka Jabuuti dad iska cayaarayaan ayuu noo malaynayaa oo halkaan jooga. haddaanan si adag ula falgelin kuwaas iyo kuwa la midka ah, dhiigga halkaan lagu bixinaya macno ma yeelanayo. marka waad ku mahadsantihiin mar labaad iyo mar kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti.
guddiga fulinta ururka cadaaladda iyo wadajirka JSP markuu arkay qodobka 34 ee dastuurka ururka oo ka hadlaya in guddiga fulintu tahay hay'adda ugu sarreysa ee socodsiinta howlaha ururka markuu arkay qodobka 35aad faqradda 9aad ee dastuurka ururka oo dhigaya in xilka guddiga fulinta ay ka mid tahay qorsheynta iyo hubinta qabashada doorashooyin xor ah cadaalad ah oo daah furan dhammaan ururka heerarkiisa kala duwan markuu arkay qodobka 11aad ee xeeroosaadka doorashooyinka ururka ee dhigaya shuruudaha musharaxa hogaamiyaha dowlad goboleedka markuu arkay talooyinka iyo tilmaamaha hoggaanka sare ee ururka ee ku aadan hoggaaminta galmudug markuu arkay ajendaha guddiga fulinta ee qabsoomay 27 Juun 2026 iyo doodihii laga soo jeediyey ee ku aadanaa siyaasadda ururka ee ku wajahan doorashada dowlad goboleedka galmudug markuu arkay soo jeedinta xoghayayaasha ururku ku qaateen in liibaan axmed xasan loo sharaxo xilka guddoomiyaha galmudug ee muddaxileedka 2026 ilaa 2031 xilka hogaamiyaha galmudug ee muddaxileedka 2026 ilaa 2031 markuu ka baaraandegay tilmaamaha hogaamineed ee mudane liibaan axmed xasan iyo duruufaha siyaasadeed ee ku xeeran dowlad goboleedka galmudug iyadoo la tixgelinayo in golaha dhexe ee ururka uusan weli dhisnayn howlihii loo igmadayna ay si ku meel gaadha u sii qabanayaan guddiga fulinta iyadoo meesha laga saaray go'aankii guddiga fulinta ee soo baxay Abriil 15 2026 qodobkiisa sheegayay in musharaxiinta ururada ee hoggaanka dowlad goboleedyadu ay si ku meel gaadha u sharaxaan xubnaha kutladda ururka ka helo golaha wakiilada ee dowlad goboleed kasta wuxuu go'aamiyey in musharaxa ururka ee dowlad goboleedka galmudug muddaxileedka 2026 ilaa 2031 uu ahaado mudane liibaan axmed xasan waan kan maanta u dhaqan galay aad baa u mahadsantihiin